sida aad maqlayseen dhakhtarka iyo wasiiraddii ka horeysay iyo culimada iyo booliiska iyo dowladdaas dhammaan waxaanu isugu nimi caawa inaan u sharaxno ummadda Soomaaliyeed annagoo matalayna qaybaha kala duwan ee loogu talagalay inay la dagaalamaan muxuu ahaa cudurkan dilaaga ah ee adduunka ku faafay annagu ka booliis ahaan annagoo fulinayna awaamirtii ka soo baxday dowladda federaalka ee Soomaaliya ee qayb ka mid ah ay ahayd la dagaalanka oo ahaa bandowga wuxuu noo bilowday habeen hore oo bishu ahayd 15 sideedii fiidnimo si fiican oo muxuu ahaa bilow fiicana ayaana loogu howlgalay waxaa ka howlgalay ciidamada qalabka sida oo dhammaan aan kulligood ku wada jiraan waxaa ka qayb galay wasaaradda warfaafinta wasaaradda caafimaadka iyo hay'ado kale oo ay ka mid ahayd maamulka degmooyinka iyo gobolka Banaadir howlgalkaas wuxuu ku bilowday bandowga ahi si degan oo mas'uuliyad ku jirto oo muxuu ahaa aan wax dhibaato lagala kulmin waxaana asal iyo saldhig u ahaa ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho oo iyagu xilkasnimadooda muujiyay oo iyadoon cidna aan la khasbin sideedii fiidnimo qof walba uu gurigiisii aaday iyada oo mar walba maanka lagu hayay inay muhiim tahay in meelaha ay ka adeegan karaan muxuu ahaa cunooyinka qalalan ee ka qaadanayaan caafimaadka isbitaalada ay u furnaayeen waxaa intaa dheer iskaashiga ciidamada iyo muxuu ahaa gobolka Banaadir oo degmooyinka ay wacyigelin iyo wasaaradda warfaafinta iyo wariyaasha kala duwan kanaalada kala duwan ee dalka jooga gaar ahaan magaalada Muqdisho ay ka qayb qaateen wacyigelinta inay dadka u sheegaan sidii ay ugu hirgeli lahaa muxuu ahaa bandowgan iyo faa'iidada ku jirta iyo imkaaniyaad badan oo ay u diyaariyeen inay dowladda hoose waxay diyaarisay ambalaasyo degmooyinka iyo gobolka Banaadir oo dhan ay keeneen wariyaashu waxay diyaariyeen wacyigelin iyo wargelin oo ay qayb libaaxda ka qaateen ciidanka haw badnaada ciidanka booliiska ee joogay markaanu xalay kormeerka maraynay maamulka gobolka Banaadir iyo taliska guud ee xoog booliiska Soomaaliyeed markaanu xalay maraynay kormeerka waxaanu la kulanay yani kontaroolada ciidamadaasi ay joogeen waxaan muxuu ahaa eegaynay bal sida ay la kulmeen iyo waxa ay u baahan yihiin naftoodu iyo muxuu ahaa siduu u dhaqangelayo aad iyo aad buuna muxuu ahaa noo soo jiitay sida muxuu ahaa xalay u hirgalay degmooyinka iyo gobolada iyo maamul goboleed dowladeedka dalka oo dhanna insha lagu hayaa waxaana la eegayaa degmo walba ama gobol walba ama maamul goboleed walba sida xaaladiisa ay tahay mar walba waa la update gareynaya waa la eegayaa xaaladaas iyaga lagu qiimeynayo ayay noqon doontaa sida ama bandowga loo fududeynayo ama loo khafiifinayo iyada ku xirnaan doontaa waxaan rabaa inaan halkan kaga faa'iideysto u sheego xalay iyo habeen horena aan u sheegaynay ciidamada qalabka sida caawana aan ku celinayaa mar labaad in ciidamada qalabka sida ee jooga checkpointyada ama meelaha loogu talagalay inay dadka ku kontaroolaan iyagoo amniga dhowraya oo hawl adag qabta oo muxuu ahaa aan la'aanteen magaaladana sidaan ahaateen haddana waxaa saaran waajibaad gaar ah oo ah la dhaqanka dadka waxaanu rabnaa aan ciidanka la farayaa inay dadka u naxariistaan inay baabuurka joojiyaan inay eegaan umulaha la wado dadka waayeelka la wado dadka uu cudurkan soo rito la doonayo inay qiimeeyaan xaaladda oo ay baabuurtaas iyo kuwa khudaarta wada iyo kuwa dekada ka shaqeynaya oo dalka ay kala xirin caadi ay u socotaan wixii laga maarmaan ah waxaan sidoo kale dadweynaha ka codsanaynaa inay ciidamada u fududeeyaan oo ninkii wax muhiim ah oo dan weyn oo muhiim markaa aanu soconin
oo aan islahayn mataqaanaa ama farmashiye wax ka soo gado ama cunno soo gado ama hawl gaara aan u soconini inuu u fududeeyo ciidamada inay waajibaadkooda gutaan waxaan rabnaa ciidamadu inay ogaadaan waxaanu meesha u goynay inay naf badbaadiyaan ma doonayno in ay naf ku dhaxdo asbaabo oo muxuu ahaa ay keeneen ciidan waddo taagan oo dad celinaya ay keeneen baabuurta caadiga ah ee aan baabuurta shaqada u socota kuwa meediyaha ay wataan iyo kuwa muxuu ahaa khudaarta iyo cunnada laga maarmaanka wada dhammaan amni ahaana la baarayaa laakiin lama celinayo waddooyinka waa marayaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo la-aanteeda ayan waxba noo hirgelin waxaan aad ugu mahadinayaa wasaaradda warfaafinta wasaaradda caafimaadka iyo maamulka gobolka banaadir oo nagala qayb qaatay arrimaha tan bandoga kan siduu u socdo waxaad ogtihiin inuu fooda nagu soo hayo ramadaan maankaanu ku haynaa ma ilowsanin qorshaha sidii aanu muxuu ahaa dib u eegi doono sida uu noqon doono ramadaanka siduu isaguna bandowgaani uga hirgeli doono magaalada muqdisho aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad ummadda soomaaliyeed ee gacantana siisa waa u mahad celinaynaa ciidamadana waxaan ku adkaynaynaa inay dadka u naxariistaan